sagaalkii bishan February waxaan u ambabaxay magaalada Addis Ababa waxaan u baxay ujeedo kaliya ahayd maadaama Afrika ku shiraysa halka wafdi uu hogaaminayo wasiirka khaarijiguna joogay iyo aqoon-yahano kale iyo siyaasiyiin kale oo Soomaaliyeed dhamaantood iska xil saaray arrinta Somaliland oo kamid ah oo kamid ah Maxamed Biixi Yunis oo kamid ah gudoomiyaha xisbiga wadaniga Cirro oo meesha dadku dhamaantay aanu kamid ah qadiyada in la wadaafaco iyo laga wada ololeeyo ayaa waxa loo baahdaa inaan ku soo xoojiyo markii la helay dad badan oo u dhigan nugul madaxweynayaal wasiir khaarijiyaal dhammaan la kiiskiina maxaa qariyay maxaa dadka wuxuu sheegi laadiin maxaa soo bixi laadiin socdaalkuna waxaa sagaalkii waxaad maalintii la doortay gudoomiyaha midowga Afrika ee South Africa madaxweynahooda maalmadan wala kala baxay inaan maalinta mar soo noqdaaba sagaalkii markii aan tagay ee ololaha iyaga aanu galnay ilaa waxa doonayaan nin walba albaab ku garaacnay cid walba u sharaxnay ayaa habeennimadii inaan soo baxno 10kii ahayd 10kii maalintii dambe fiidkii anoo 12 soo baxay salaasidan soo bixnayn ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska prime ministerka waxaan u sheegay in salaasada 12 oo prime ministerka Ethiopia marti qaaday xafiiskiisa saacada aan imaado runtii ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu xukuumadda dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika waa prime ministerka Afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize ee caalamku siiyay waa nin adduunka intiisa badan iyo dadka la yiraahdo waxbay faaqidaan ama researcherska iyo cidda wax qorto dhame ay aad iyo aad u taageeraan oo loo arko inuu yahay ninka sameynaya isbedel geeska Afrika oo dhan isbedelkaas oo nabad isdhexgal iskaashi iyo horumar ku qotoma aad baan ayaan ugu farxay markuu wacay inuu chance ka siiyo hal baan ku tagay anoo aad u ordaya ayaan xafiiskiisa ku tagay 12 salaam iyo kaftan ka bacdi laba eroos ku salaana wuxuu sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhaxal ku soo jiro hadda soo galayo halkan markiiba isna waa yimid saddexdeedu halka waxaan ku galay shir aanan kullee anigu qorshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin aanan maan ku hayn inuu saa fudud shirkaas u dhacayo waa si kumaatay ra'iisul wasaaraha Ethiopia haddii usaan oo ixtiraamay oo isagoo oo Afrika oo dhan ku yuugu jirto oo shirki ku jira arrintaas qadiyada Somaliland iyo Soomaaliya inuu saa u daneeyo waaga mahadnaqay halka laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa prime minister Abiy wuxuu yiri waxaan doonayaa oo diyaar u ahaan soo diyaar garoon soo xarka xidhay inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Somaliland way raagtay waa arrin Afrika u taala waa arrin geeska Afrika u taala marka arrinta waa galaya Somaliland hadii aanu nahay waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia halka wax ka badan Maxamed Cabdullaahina waa aqbalay inta wax ka badan oo barnaamij iyo ajanda iyo faahfaahin midna laba gelin waqtigeedaba laba hayn madaxweynayaal baa meesha istaba socday inta iyo salaaniyo waa yahay aanu diyaar garoonayo waanu diyaar garoobaynaa ayaan ku kala nimid waxa kale oo jira dawladda dhowra oo Afrika leh oo Yurub leh oo Asia leh oo ku jiray arrinta inay dhex galaan Soomaaliya iyo Soomaaliya waxa kamid ah Turkiga waxa kamid ah Sweden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socda halka noogu yimid oo ku diyaar baan u nahay wada hadal kartaydu way noo duuban tahay geed walbana diyaar baan u nahay inaan kartayda ku gallo anaga u baahan waxaan dhex gala labada dawlad waxay waliba culays badan saareen madaxweynaha Djibouti oo yiraahdeen adiguna nagu soo beer haddaan nahay Turkiga iyo Sweden oo isaguna isoo weydiiyay oo yiri arrintaas la yiraahdo maxaan ka yeelan karo aad iyo aad baan soo dhaweynayaa inaad soo gasho cid wal artay soo galaysa waan u baahanahay gartaydu way noo go'antay fagaara kama baqayno warwar ma qabno gartaydu way noo taala waa noo duubantay arrintaas intaas ku dhamaatay saas lagu soo kala ma baxay vision 13 13
13 February ayaa waxa dhacday arrin kulliba anigu aan filayn dadka badankooduna aan filayn madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raali gelin wixii xasuuqi ka dhacay Soomaaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan 88 kilo oran maayo 9 wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60 maalintii inqilaabkii Xasan Keydii lagu dilay ninkii sarkaalka ahaa ina cabe raali gelintaasi waa ninkii u horeeyay Xasan Sheekh marbuu si dulmara u yiri waan ka xunaa wixii ka dhacay ee dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halka raali gelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad aniga kadkadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raali gelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya waayo garusho waasid erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlayo ninka hadda raali gelinta bixinay inta in leeyo ka soo horjeeda oo aan saa warkaynin ayuu la hadlay caalamka la hadlay marka maanta halkaasi waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garowshahaasina waa koow anana waa gudoomayna